السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برامجka ciyaaraha oo aynu ku eegi doono kulamada la ciyaari doono maanta oo Arbaca 11 bisha May kulamada caawa dhacaya waxaa kamid ah kooxda Chelsea ayaa u safri doonta kooxda Leeds United waxaana ka warqabnaa kooxda Leeds United in kulamadii ugu dambeeyay labadii kulan ugu dambeeyay laga badiyay kulan waxay la ciyaartay kooxda Manchester City ee ku ciyaartay gurigeeda kaasoo 4-0 looga badiyay halka ay kulanka u dambeeyay u safartay kooxda Arsenal taasoo 2-1 looga badiyay walow ay qaateen Rosso ama kaarka cas kooxda Chelsea ayaa si iyadana ku jirta qaab ciyaareed aan aad u wanaagsanayn ayagoo kulanka u dambeeyay kooxda Wolverhampton barbaro 2-2 la galay ayagoo ciyaarta 75 daqiiqo markii intay mareysay ku hogaaminayay 2-0 Chelsea ayaa laga daba keenay 2 gool ciyaarta qaybtii dambe ciyaarta dhamaadkeeda taasoo ciyaarta ku soo ilaatay 2-2 Chelsea ayaa ku jirta qaab ciyaareed aad u wanaagsanayn kulamadii u dambeeyay inta badisay waa kulamo aad iska yar sanadkan Chelsea waxay u badan tahay inay soo bixi doonto Champions League maxaa yeelay labada kooxood ee Arsenal iyo Tottenham ayaa berito oo Khamiis ah wada ciyaari doona labada kooxood oo wada ciyaaraya midkood hadii laga badiyo waxay in aysan Chelsea usoo dhawaan kareynin kooxda Arsenal ayaa hal dhibic jirta kooxda Chelsea oo 67 leh hadda halka Tottenham ay leedahay 60 Arsenal ay leedahay 66 Chelsea ay leedahay 67 halka Tottenham ay leedahay 62 Chelsea ayaa u jirta 5 dhibcood kooxda Tottenham hadda Arsenalna u jirta kooxda Tottenham 5 dhibcood 4 dhibcood marka Chelsea xoogaa waxay nafis ka dareemaysaa maadaama labadan koox ay isku dhacayaan Tottenham iyo Arsenal ayaa isku dhacaya darteed Chelsea faa'iido u tahay kii laga badiyo waxay Chelsea u tahay faa'iido sababtoo ah Chelsea waxay isku dayaysaa inay xaqiijiso soo bixitaanka Champions League sanadda soo socda weli ma aysan xaqiijin Chelsea inay u soo baxday Champions League markaad fiirisid aan dhahay kala horeynta horyaalka markaad fiirisid kooxda kubadda cagta ee Chelsea 60 iyo waxay leedahay 7 dhibcood halka Arsenal 66 leedahay Tottenham ay leedahay 62 dhibcood min 3 kulan baa u haray kooxo oo dhan 35 kulan bay ciyaareen maadaama horyaalka uu ku dhamaaday 38 kulan Arsenal iyo Tottenham 9 dhibcood bay weli heli karayaan laakiin maadaama labadooda isfays gareynayaan 9 dhibcood macquul maaha labada kooxood ma heli karayaan haddii labada kooxood break galaan labada kulan horena ay badiyaan waxay heli karaan 7 dhibcood Tottenham haddii 7 dhibcood hesho waxay noqonaysaa 69 Arsenal haddii 7 dhibcood heshana sidoo kalena waxay noqonaysaa 73 dhibcood Chelsea haddii kulamada hore laga badiyo 67 dhibcood Chelsea waxay u baahan tahay sabab darteed weli safe maaha Chelsea markaad fiirisid laakiin waa fursad marka la fiirsho kooxaha Arsenal iyo Tottenham u ciyaaraya Chelsea fursad bay u tahay si ay fursadaas inay kaga faa'iideysato Chelsea waa inay badisaa kulanka soo socdaahay haddii Tottenham badisana weli Chelsea ma aysan xaqiijin soo bixitaanka Champions League waa inay 2 kulan badisaa Chelsea 3 kulan la haray kulamada kale waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta ee Man City ayaa u safri doonta kooxda Wolverhampton kulankaasi oo kooxda Liverpool ilgooniya ku eegi doonto maadaama hadda isku dhibcan yihiin 80 iyo 6 dhibcood wada leeyihiin Man City hadii badiso wuxuu ku soo noqonaysaa inay ka horeyso kooxda kubadda cagta ee Liverpool 3 dhibcood oo nadiif ah Man City ayaa leedahay doonta 69 dhibcood halka Liverpool ay hadda leedahay 60 iyo 86 dhibcood walow labada naadi ay markaas wada ciyaareen haddii sida u dhacdo resultiga labada naadi ay wada ciyaareen min 36 laba kulan kaliya horyaalka u kaarsan yahay horyaalkan wuxuu u badan yahay 90% inuu aaday dhanka kooxda kubadda cagta ee Man City balse la arki doono kulanka caawa kooxda Wolverhampton iyo Man City dhexmari doona sida uu ku soo gabagabado kulamada kale waxaa kamid ah Watford iyo Everton ayaa wada ciyaari doona Watford way ka hartay horyaalka Ingiriiska sidoo kale Norwich baa hartay Everton iyo Burnley iyo Leeds ayaa ku dagaalamaya kaalinta kale si kooxdii ka badbaadi lahayd inay kamid noqoto saddexda kooxood ee hara Everton dii caawa badiso waxay noqonaysaa in xoogaa ay safe ka noqon karto in u noqoshada horyaalka labaad Leedsna laga badiyo waynu arki doonaa kulamada caawa sidii kusoo gabagabaan anagoo ka hadli doona falanqeyn doona markii la ciyaaro kulamadan berito ka hadli doona isbedel ku imaada xagga kala horeynta kooxaha horyaalka hoos u noqon doona iyo sidoo kale kooxaha top 4ka iyo kooxaha horyaalka u tartamaya intaba وما سنتي لصعشة برنامجك فضلا سبسكرايب صار جنالك كقرب قاعدة كوريتانك جنالك لايك صار سيو أصحاب بدنا وقارو
waad mahadsantihiin daawashada barnaamijka aad daawataana.